بسم الله الرحمن الرحيم maanta waxaan bilaabaynaa casharkeennii shanaad cutubka sideedaad casharkiisa labaad buu inoo noqonayaa maadada afka Soomaaliga ee fasalka sideedaad casharkeenna maanta waxaan ku baranaynaa eray dhaqameedka afka Soomaaliga wuxuu leeyahay eray dhaqameed aad u fara badan buu leeyahay laakiin maadaama aynu ku jirno cutubka sideedaad casharkiisa labaad waxaan ka dhiganaynaa erayada loo adeegsado ee xoolaha aan dhaqano oo reer miyigu ay sida fiican waxa weeye hadii la ku roon yahay u adeegsadaan marka ay xoolahooda iyo habtibaaxeedka nolosha ee miyiga ay ku sugan yihiin sida halkan kaaga muuqato marka adeegsiga eray dhaqameedka waa kala duwan yahay oo aad buu u badan yahay marka maadaama aynu ka hadlayno xoolihii inagu aan dhaqan jirnay xoolihii mar waa la ilaalinayaa mar haddii ilaahay ku roon yahay waa aroor mar haddii ilaahay ku roon yahay waa haddii ilaahay ku roon yahay xaalado badan ba la galaya oo xoolahaas ka mid ah laakiin inagu waxaan maanta qodobada aan kaga hadlayno ugu horeeya xoolaha marka la ilaalinayo erayada loo adeegsado erayada marka xoolaha marka la ilaalinayo loo adeegsado waa erayo aad u badan inta ugu adeegsiga dhow waxa weeye aan ka maqnaan haddii ilaahay ku roon yahay saaxada habtibaaxeedka reer miyiga baynu rabnaa inaynu soo qaadano erayga koowaad oo marka meesha inoo ka muuqdo waxa weeye foofna waa la yidhahdaa dadka qaar waxay yidhaahdaan xoolaha ha la soofiyo kuwana waxay yidhaahdaan xoolaha ha la foofsho marka foof iyo soof waa isla macne marka eraygaas waxaa lagu macnaynayaa waa markii xoolaha inta xerada laga sii daayo la daaqa geeyo xoolihii waa kuu xeraysnaayeen waagii baa kuu bariyey salaadaadii baa tukatay waxa weeye dilaa kuu roonyahay hawshaadii baad waxa weeye sii gelaysaa nolosha miyiga saa darteed xoolahaaga waa inaad baad u sii daysaa si ay kuugu soo daaqaan marka habkaasaa waxaa la yidhahaa sof lambarka labaad wuxuu inoo muujinayaa baadida marka waxaa la yidhaahdaa neefka xoolaha ah oo luma neefka xoolaha marka uu maqan yahay baa waxaa la yidhahdaa baadi neef ariya baa iga maqan ama neef geela ha noqdo ama neef lo' ha noqdo neef markaa maqan oo aan kuu soo hooyane kaa maqan baa waxaa la yidhaahdaa baadi lambarka saddexaadna waxaa ku qoran baadidoon baa ku qoran baadidoonka marka waxaa la yidhahdaa maadaama neef uu kaa maqan yahay qofka raadinaya baa waxaa la yidhahdaa baadidoon waran hebel maanta nin baan maanta halkaa jidkaa ku kulanay oo muxuu ninkaas ahaa haddii aad lagu yidhaahdo oo aad tiraa ninkaa hebel geel buu baadidoonkiis ahaa marka waa baadidoon waa habka waa qofkii xoolaha raadinayay baadidoon baa isagana lagu magacaaba lambarka afraad waxaa ku qoran baytin iyo yaahin laba eray baa ku qoran labada eray marka waa laba erayoo isku adeegsi ah waa habka marka xoolaha kaa maqan aad dadka u weydiiso xooluhu markay kaa maqan yihiin habka aad dadka u weydiinayso baa waxaa la yidhaahdaa baytin ama yaahin baa la yidhaahdaa marka habka xoolaha kaa maqan aad dadka u weydiinayso wey lambarka shanaad waxaa ku qoran isagana dibbood ereyga dibbood inta badan waa neef xerada marka aan u soo hoyan habeenka oo maqan inta badanna ereygaas waxaa loo adeegsadaa geela baa loo adeegsadaa waa eray dhaqameed xagga geela inta badan reer miyigaas ariga dhaqdaa awrtoodii oo kaleetaa laga yaabaa maanta intuu dhaankii ka furay inuu sii daayey kadibna ay markaa waxa weeye dila ku roon yahay ay dhaxday oo markaa ay ka maqan tahay neefkaas marka wuxuu ku leeyahay artigii maanta markii dhaanka laga furay baa noogu dambeysay marka waa dhaxay artigaasi marka waa dibbooday baa la odhanayaa neefkaas geela lambarka lixaad isagana waxaa inoo ku qoran goosan waxaa la yidhahdaa maanta markaad xoolaha raacdo oo 3 meelood oo 2 meelood ama meel ay kaa baxsato xoolihii marka xoolihii waa baxsadeen kala barbaa xoolihii kaa maqan xoolo aad u fara badan baa maqan marka waxaa la yidhahdaa goosan waa markii marka 3 meelood oo meel xoolaha ay ka lunto oo marka ay kaa maqan yihiin lambarka 7aad waxaa ku qoran guriya noqod baa ku qoran guriya noqodka waxaa lagu macneeyaa isagana reerku waa soo guuray xera cusub buu soo degay xooluhu xerada marka lama ay qabsan xeradoodii hore oo waxa weeye ay ka soo guureen bay u laabteen oo u baxsadeen marka xoolihii baa indhaysay mise waxaa kaa maqan qayb baa maqan marka waxay leeyihiin xoolihii waa guriya noqdeen xagga iyo meeshii laga soo guuray ha loo raadiyey marka baadidoodii dhinacaasa waxa weeye dila ku roon loo qiyaasaya marka inay jiraan oo ay guriya noqdeen marka guriya noqod baa loo adeegsadaa lambarka ku xiga ee sideedaad wuxuu inoo sheegayaa dhalandhool ereyga dhalandhool waa in qoraxda oo kulul la socdo qoraxda oo kulul in la socdo wey werwed baa ku xiga isaguna la yiraahdaa
waa loo adeegsadaa marka qaarkood baqoolna waa loo adeegsadaa markii aad duhurkii oo kala tagto qoraxdu aad u kulul reer miyigu marka go'a intay madaxa saarsadaan bay si dhalan doolaan markii ninkii hebel ahaa waa dhalan doolay baa la oranaya xoolaha oo kale tan iyagoo ooman baa laga yaabaa inta soo harisay inay marka adii la ku run yahay ay intii aad waxa weeye guriga waxa weeye caana iyo waxa weeye dila ku run yahay shahada wixii aad karsan lahayd aad ku maqnayd inay tagaan marka xoolahi waa dhalan doolay baa la oranaya marka qoraxda kulul in waxa weeye dila ku run yahay la socdo waxa ku xiga lambarka 9aad ragaad waxaa loo adeegsadaa neefka xoolaha markii ay qodax muddo neefka xoolaha markii qodax muddo waxa la yiraahdaa neefkaasi waa ragaadsayn neef dhutinaya aragtay la ahaado ama riiha ahaado kadibna waxa tir neefkaas qodax baan u maleynaa inay ku jirto marka qodaxdu ay neefka muddo waxa la yiraahdaa ragaad lambarka 10aad wuxuu leeyahay caraabadu marka laba macno ay leedahay hadii intaad magaalo oo kale ama tuulo oo kale taa u soo dan tagtay aad waxa weeye qoraxdu goortay gaabato aad ka tagtay marka waxa oranaysaa waa si caraabayaa reerkii waxa weeye waa hasha ilaalis dhow yahay weeye laakiin cabaar buu durugsan yahay ninka reer miyigaada isku socod ma ahayd nadar reer magaalta ay ku yiraahdo reerku waa hasha ilaalis ha isku hadlay ninkaas waxa laga yaabaa inuu muddo 4 saac meel loo socdo kaaga dhigo min saacad loo socdo sababta waa nin waxa weeye fayl goosto aad u dheereeyay weeye caraabada waxa kale oo loo adeegsadaa xoolaha markii intaad maanta soofiso xoolihii hadhow aad gabalgaabkii gurigooda xagooda aad u soo celiso ee guriga aad u soo kaxaysto dhankiisa waxa la yiraahdaa xoolaha la soo caraabay marka nimanka reer miyiga oo kale intay xoolaha subaxii waxa way sii daayeen bay qoraxda goortay qabowday oo awrta hadii doonaan soo rarneen marka waxa la geediga soo caraabay hebelo awrta anagu argay waxaas aan sii kaxaynanayo xeradii waxa way reer ku sii hooyeen laay waxaan u sii oodeen way lambarka ku xiga waa mayraca waxa la yiraahdaa xooluhu markii ay guriga agtiisa ku daaqayaan oo gabalgaabkii ay tahay oo qoraxdu ay qabowdahay inta badan reer miyiga waxa soo beega martaas oo kale martida waa reerka soo beegta si odaygii reerka iyo xaajiyadiisu ay u go'aansadaan neefkii ay martida u loogi lahaayeen casarka waa xilliga gaaban martidu inta badan dhaqanka Soomaalida xilli hore bay soo beegaan reerka laakiin marti habeen bar soconaysa waxa way dhaqanka Soomaalida xoogaa waa ku adag tahay waxayna ku xigaa erey kale oo 12aad barqin waxa la yiraahdaa markii xoolaha hooyada hadii riyuhu u irmaan yihiin ama ay marka u dhalaan ay waxaaraheeda u dhiganayso ama ay caana ka maalayso idaha iyo ugeybka yaryar oo riyuhu dhaleen oo marka hadii ay ku rooyaan caanaha noogin baa la isku sii daaya subaxii ugeybkaas marka waxa weeye lagu sii daayo idaha waxa la yiraahdaa idaha iyaga waxay u yihiin indho oo subaxii iyaga idaha soo barqaya marka waxa la yiraahdaa korbaxo baa la yiraahdaa korbaxo waxa lagu sii daayaa marka idaha guriga marka agagaarkiisa ku soo celcelinayaan inta riyaha ooda laga soo qaaday marka xilliga qoraxdu waxa weeye ay qabowdahay ee qabownada ah idaha la sii daayo baa waxa la yiraahdaa xoolaha marka la daajiyo barqin waxa ku xiga ereyga mir macnayaal badan buu leeyahay oo afkeena Soomaaligu aad buu hodan u yahay mir waxa la yiraahdaa wax kasta oo habeenkii aad la kulato ama aad adigu qabato hadii adigoo iska hurda oo roob ku yimaado habeenkii oo tiicirka ku gaacsaneed ilaahay ku shub waxa leedahay mir xalay roob miraha baa ii daay hadii inta iska seexato col ay waxa weeye ku soo dhacaan oo waxa weeye dila ku run lagu soo weero waxa leedahay warni xalay waa la imarkay goor adigu saq dhexa ay ahayd hadii intaad kacdo aad caanacato sidoo kale waa miratay laakiin inagu xoolaha markaynu ka hadlayno dhankeen waxa yiraahdaa xoolaha markii habeenkii la daajiyo xilliga habeenkii ah waxa weeye aan maalin ahayn habeen ah baa waxa leedahay xoolihii waa la miro oo inta badan waxa laga yaabaa intay maanta dhaceelka ku maqnaayeen in waxa weeye dila ku run xooga wiilal iyo awda dhalinyaro ah tiray warbar inta waxa weeye dila ku run maadaama maanta dhan ay soconayeen dhulka intay xooga waxa weeye dila ku run daaqayaan halala joog waxa ku xiga qalo waxa loo adeegsadaa neefka xoolaha ah oo waxa weeye hadii ay ku run yahay ariga aan ka tirsanayn oo marka ariga baadida waxa weeye ku jira neef baadiyo ariga ku jira waa uu ciyayaa oo arigiisi ay ur yaqaaneen oo isla daaqa jireen waxa weeye meesha ma joogo marka waa qaloonaya adiga laftigaagu hadii fasalka form 2 oo kale aad tahay oo saaka lagu yiraahdo form 3 xiisad ku qaado ardada fasalka dhigatay iyagu way is yaqaaneen adiga laakiin xoogaa waa qareebsanaysa dadkaasoo shibtaada u baxaysa ay hadleemaysi meesha ardada kale ay macalinka su'aalaha weydiinayaan oo kale adigu iska amsanaansan sababta jawgaas adiga waa jawi kugu cusub weey saasoo kale neefkaas waa neef qala ah oo ariga kan ma aha arigiisi waxa marka waa uu ciyaya neef qala ah baa ariga ku jira marka la leeyahay waa neef marka baadi ah oo aan ka tirsanayn xoolaha kale kaaga soo wareegay marka waxa ku xiga haraariyo waxay yiraahdaan neefka xoolaha markii qoraxdu ay ka tambadiso qoraxdiyo aad u kulul baa waxa weeye dila ku run yahay neefkii cidla ka heshay marka afku kala qaadaya neefkaas waxa weeye waa haraariyoon
carab ku soo saaraya markaas hooyooyinka waa yaqaanaa neefkaas waa hararyoonaya geed harle iyo hal la geeyo madaxa iyo marka biyaha loogu shubo waxa way dilay halala tacaalo xaalkiis harariya marka loo adeegsada waxa ku xiga muqlo baa ku xiga muqlo waxa la yiraahdaa neefka shilin baa xoolaha cunta miyiga marka neefka shilintii baa ka tambadinaysa shilin aad u fara badan baa cunaysa marka adimadii uu ku taagnaa ee uu ku soconayay ma hayn karaan neefka culeyskiis marka wuxuu noqonayaa neefsi u dhacdhacayo marka noqonay hooyadu marka waa garanaysaa waxa neefkaas waa muqlaysan yahay heblaayo orod waxa samaysaa hadii la ku ruuyahay bal shilinta waxa way ka gur marka habkaas oo kale taa la yiraahdaa marka shilintu waxa way neefka ay soo ridato waa waxa la yiraahdaa muqlo 17 waxayna ku qoran biyo rabo xooluhu waa oo manaayeen neefkii waxa way biyihii buu iska badi ceelkii marka xoolihii goorta laga dareeriyay buu isagoo ceelkii ka kici waayay neefkaas oo kale waa biyo rabooday baa marka la yiraahdaa marka dadka marka waxa way meesha looga tagay ama looga taga oo neefkaas haya ama waxa way hadii la ku run yahay gaadiidkii aad wadatay iyo saarsanaysa ama waxa way si kale ba ula tacaalaysa neefkaas marka waa neef waxa way hadii la ku run yahay biyihii iska badiyay qofka bini aadamka aba goorta aad u haraado oo aad biyo cabto biyuhu waa kugu dhacayaan marka waa ku mudayaan marka biyo aad baa ugu xanuunsanaysa marka saas oo kale qaabkaas oo kale marka ay neefka biyuhu u qabtaan baa waxa la yiraahdaa biyo rab 18 waxaana ku qoran maadaama aynu xoolaha ka hadlayno xoolaha dhul waxa weeye la daajiyo iyo dhul waxa jira dil ay ku run yahay reer miyiga ay degaan marka erayo ay u adeegsadaan baa waxa rabnaa inaan iyagana ku soo darno oo meesha aynu aragno 18 marka wuxuu inoo sheegayaa doog meesha haday taa waa meel barwaaqo oo ilaahay raxmad intuu ku shubay waxa weeye dil ay ku run dhirteedii ay magooshay xoolihiina anfac fiican u leh waxa la yiraahdaa doog waa meel barwaaqo ah oo xoolaha cunno fiican u leh abaar baa marka iyaduna jirta abaarta marka dhulka marka la dhulku waa abaar waa kala duwan yahay ninka reer miyiga hadduu markuu ku warramayo ku yiraahdo warniyow abaarta lagu jiro abaar baa lagu jiraa abaartaas marka waxa weeye dila ku ranayay waa noocyo badan tahay marka abaar la leeyahay ma noqonayso moogtahay hal dhinac kaliya loo macnayn mar waxa la raacinayaa maxarshoon mar waxa la raacinayaa maxarshoon baa la raacinayaa marna waxa la raacinayaa jimcoon haddii la yiraahdo marka jiilal iyo abaar waa isla dhulku markuusan lahayn weeye moogtahay dhir xooluhu ay anfac fiican u leh marka reerku goortu ku warramaya ninka reer miyiga wuxuu kale warinayo jiilal jimcoon baa lagu jiraa ama wuxuu ku oranayaa jiilal maxarshoon ah baa lagu jiraa haddii marka maxarshoon la yiraahdo xooluhu dhirta wax ay ka soo qaadaan male biyana meeshu male waa ceelka dheer weeye marka waa nolol aad u adag weeye hadduu laakiin ku yiraahdo jiilal jimcoon baa lagu jiraa xooluhu meel ay u arooraan waa leeyihiin oo ay biyo ka soo cabaan dhulkuna waxa weeye dila ku ranay xaab iyo caws iyo dhul qalalan buu dhir qalalan oo gurto marka u leeyahay haddii marka dhanka kale mar buu wuxuu ku oranayaa war goorta isu timaadaan war dhigi waran aad tiraadid wuxuu ku oranayaa haddii ilaahay ku ranaya wuxuu ku dhahayaa wuxuu ku oranayaa inuu xaal waa samoolad buu ku oranayaa xaal waa samoolad marka ereygaas markay samooladka markay adeegsanayaan ninkaasi reerkiisii buu joogaa iyo waxa weeye dila ku reemigiisii uu degan yahay xaal waa samoolad hadduu ku yiraahdo xooluhuna waxa weeye waa u daaqaan biyana waxa weeye dhulku waa u leeyahay haddii ilaahay ku roon yahay colaad marka ciiday ishayaan iyo ciiday ka baqayaanina ma jirto marka barwaaqo xasilooni buu isaga jiraa dhulkiina baad buu leeyahay marka xaal waa iska samoolad hadduu ku yiraahdo barwaaqadiisa jaran waxba kama maqna marka erayada noocaas oo dhan baa marka halkaas inoo ka dhashay iyagana af baa ku soo hadhay ereyga af waxay reer miyigu yaqaanaan dhulka aan cidna deganayno cidlada marka dugaagii xoolaha cuni jiray waa joogaa isagu laakiin dad iyo doonyo iyo waxba ma joogaan waa meel cidla marka waxa laga yaabaa inaan ta sahan ku timaado dhulkaas uu kugu noqdo dhul aad cid aad ku sii hooyatay waxba ka weydo markaas aad leedahay war maanta nin dhul aafa baa igu soo beegmay waxa weeye muddan ku soo jiray waxa weeye cidna ma deganay abaar dhowr baa iyaduna ku xigta abaar dhowrta reer miyigu waxay yiraahdaan waxay reer miyigu yiraahdaan abaar dhowrta doog baa halka kan roob baa ku da'ay dhinacaan waa doog dhankaana waa abaar marka dhul waxaa jira doog roobkana ka warqaba abaartana ka warqaba oo meel dhexa ah waxa weeye dila ku ranay oo ciira roob yar oo ciira ah buu leeyahay marka dhirtiisu xoogaa yar oo qabow ah oo ka soo gaaray dhanka doogga roobku ka da'ay baa jira dhankaana qiiqii iyo abaartii kulaylkii baa kaga baxay marka diilin madow bay marka noqonaysaa dhanka kana waxay noqonaysaa dhinaca abaartaha dhinacana waxay noqonaysaa dhinaca doogga hooyooyinka marka waxay yiraahdaan ariga halka uu ekeeyo heblaayo dhinaca abaar dhowrta inta ka madho bal xagga isugu soo celi ariga marka waa meel waxa weeye dila ku run yahay abaar ka warqab ah weey dooggiina waxa weeye waa u dhowdahay oo xoogaa ciira ah bay leedahay marka way 22 waxa inoo ku qoran aftinka dhulka la yiraahdaa waxa weeye waa dhul intuu roobsaday dhirtiisa ay magooshay oo aad u baxday aan idina deganin marka adoo sahana laga yaabaa inaad timi marka sahan inaad ku timi
atira war maanta waa sahmiyay oo dhul hadii ilaahay ku roonyaa aftin ah baan tagay cidina kaagama soo horeyn adiga marka xoolahaagii baa u soo raraysaa marka hadii ilaahay ku roonyaa waa dhul barwaaqa oo dhirtiisa ay aad u baxday oo xoolihiisi waxa way geediisa aan wali la baargoyn barwaaqa waxa ku xiga ereyga omos isagu saddex qodob buu isku darsanaya dhulku waa omos hadii la yiraahdo waa dhul baad la'aan ah oo xoolihii waxba aysan ka goosanayn biyo ka dheerna ah oo waxa way dilay ku roonyaa ceelashii iyo waxa way wixii dhan ka fog haddana kulayl buu ku darsaday marka dhulku hadduu omos yahay waxa way waa ku adkaanaysaa nolosha marka miyiga hadii ilaahay ku roon yahay iyo xoolaha iyo habtabaaxeedka geediga iyo hadii ilaahay ku roon yahay xoolo dhaqashadu inay ku sii nagaato marka qodob kale inuu ku xiga oo ah xoolaha marka biyaha loo raadiyo xoolaha marka biyaha loo raadsho waxa way hadii ilaahay ku roon yahay bal erayada loo adeegsado erey afar iyo labaatan ereyadii hore buu la socday oo waxa weeye waranbixiga waxaa la yiraahdaa dhulka markuu baxo cawskiisu oo dhirtiisu ay baxdo oo waxa weeye dila ku reeyaan cidina deganay laakiin ninka reer miyiga ay wuxuu halka u deg waayay sababaha waxa kamid ah inay meeshaas meel dugaag badan tahay oo dadkii ay ka kala carareen oo nin walba xoolihiisa la cararay iyo inay tahay meel colaado looga cararay waranbixi baa marka la yiraahdo caws waranbixi baa ku yaala dilayra ama naq iyo ramaas waranbixi ah waxa weeye cidina ma degin waa adagtaa in la dego ama hal looga boqo dugaag iyo bahal miran meesha ha ahaato ama waxa weeye hadii ilaahay ku roon yahay hab kale oo colaadaha dadka dhex mara ah looga carfay waa meel aan la degin weey marka iyadu waa ka duwan tahay dhulka kale oo aftinta la kaas waa mid uusan cidna ka baqayn oo deg karo waaya ereyga marka ku xiga halka waxa weeye kal marka waxa weeye macnayaal badan bay leedahay hadii caloosha oo kale waa lagu tilmaamaa kala haduu qofku ku yiraahdo hebel kal iyo laaban ku salaam yani qalbigiina xumaan kugu hayo calooshiina xumaan kugu hayo oran kara kal waxay kala yiraahdaan meel biyo galaan oo meelaha dhulkeena kamid ah kal ay biyuhu galaan marka roobowga wax weeye dhulku u doo waxa kala la yiraahdaa markaynu rabno inay masagada ama haruurka ama badarka aynu tumanno mooyaha usha waxa weeye dila ku roon ay badarka ku tumanana waxa yiraahdaa kal marka afkeenu waa af waxa weeye hodan ah marka inagu halkan inuu ku jira kal xooluhu markay ooman yihiin oo waqtigii la waraabin lahaa uu soo galo xilligoodii baa waxa la arigu maanta waa kalan yahay ariga kalkiisii baa maanta la joogaa marka waa la waraabinaya waa in la waraabiyo oo ceelkii loo dhigo baa ku xiga onka waxa la yiraahdaa xooluhu markii ay biyo u baahdaan adigu marka aad biyo u baahatay waxa oranaysaa nin haraad bay ahayeen laakiin xoolaha inta badan reer miyigu waxay u adeegsadaan bay u adeegsadaan marka waa xooluhu markii ay biyo u baahdaan aroor baa ku xiga aroorka waxa la yiraahdaa xoolihii markii ay biyo intay u baahdaan marka waxa weeye ceelkii loo dhigo baleera xoolihi waa la arooriyay waxa ku xiga guul baa ku xiga xoolaha aroorisay marka ceelku waa ku dhawaan kara waana ka fogaan kara erey marka la yiraahdo guul baa meesha soo galay guul hadduu meesha soo galo macnaheedu waxa weeye xoolahan la arooriyay oo guriga laga soo kaxeeyay ka soo qaad xarafka ah inuu guriga inoo yahay baana uu inoo yahay ceelkii inoo yahay xooluhu markay intay soo arooraan maanta la soo arooriyo qoraxdu ay meelaha ceelka oogadiisa ugu dhacdo laakiin aysan ceelki gaarin baa waxa la oranayaa xoolahaasi waa guulkaas marka waxa raacaya xooluhu maadaama aysan wali cabin guul ooman baa la oranayaa marka waa ooman yihiin marka waa soo waraabisay oo waxa weeye dila ku runaya ceelkii baa ka soo furisay maalintii dambe baa adoo meelaha dhexe sii wado aan wali gurigii gaarin baa iyadana halka uga xira dhigtay iyaduna waa guul oo wali gurigii iyo ceelkii buu xooluhu dhaxeeyay laakiin marka maxaa raacaya waa guul cokan marka leeyahay marka muxuu yahay marka waa wadax weyn marka guul marka ereyga guul waa markii xooluhu ay u dhaxeeyaan guriga iyo ceelka dhexdiisa ay fariistaan laakiin marna waxa la raaciyaa guul ooman marna waxa la raaciyaa guul cokan baa la raaciyaa waxa ku xiga ceelalyo waa ku xiga ceelalyo marka waxa lama macnay leedahay mar waxa la yiraahdaa xoolaha markii adiga iyo aabo kale iyo waxa weey gabar walaasha ay kale ama hooyo kale ay kula wado aroor xoolo yihiin in aabe iyo wiilka oo kale ta ay sii hormaraan ceelka kaaga soo hormaraan oo yiraahdaan yeelkii baan u sii diyaarinayna xoolaha idinkuna soo kaxeeyay marka ceelalyo waxa la yiraahdaa qofka xoolaha ceelka uga hormara si uu qalabkii xooluhu ku cabilahayn u sii diyaariyo waxa kale oo ceelalyo lagu macneeyaa markale iyadana oo macna kale oo afkeena kamida uu leeyahay haddii xoolo waxa weeye ooman ay ceelka yimaadaan adoo ceelka jooga xoolaha waraabiso ama xoolahaaga ku fuli ama marka cid kale u sii dhiibo waxa oranaysaa xoolo waxa weeye dila ku ran ceelalyo ama maanta ceelka ku arkay oo aan waraabiyay hebel baan u sii dhiibay ama xoolaha ku jiraan marka xoolahaasna waa la yiraahdaa ceelalyo hormo baa kala ku xigta iyaduna hormada waxa yiraahdaa xoolaha markii si aanay kaalinka isugu ciriirin meesha ay ka cabiyaan in loo soo daayo qayb baa waxa la yiraahdaa horm waxa ku xiga horidana waxa la yiraahdaa marka daqiiqada soo deynta xoolaha si waxa weeye neef walba meel ugu haboon uu biyaha uga cabo baa qayb xoolaha loo soo deynaya waxa yiraahdaa marka hormo Soomaaliya marka soo deyntaas xoolaha qayb soo deynaysana waxa la dhahaa horid
kaalin baa meesha ku xiga kaalin marka haddii la yidhahdo ereyga kaalin haddii loogu dhawaaqo hebel doorkaaga hawsha ka qabow laakiin haddii kaalin la yidhaahdo waa darka ama waa meesha xooluhu marka ay ka cabaan oo yeelku u yaallo waxa ku xiga kamiin kamiin waxa la yidhahdo xoolihii oo manaa markaad waraabiso biyaha u horreeya oo ay cabaan biyaha u horreeya oo ay cabaan baa waxa la yidhahdaa kamiin biyaha u dambeeya xooluhu markaad ceelka ka kaxaynayso ay cabaanna waxa la yidhahdaa rakaad baa marka iyagana la yidhahda marka kamiin iyo rakaad way iska soo horjeedaan oon iyo haddii la ku ranya wabaxna way iska soo horjeedaan wabaxa waxa la yidhahdaa xooluhu markii ay cabaan markii xooluhu biyo ku cabaan baa waxa la yidhahdaa xoolahaasi waa xoolo wabaxa waaya 36 ereyga wuxuu inoo sheegayaa fuliin fuliin waxa la yidhahdaa xooluhu intay cabaan markii waxa way wixii waxa way dila ku ran yahay ceelka ka dareerinayso gurigooda u dhigayso baa waxa la yidhahdaa xoolaha hal la fuliyo waxa ka soo horjeeda iyadana aroor xooluhu markay aroorka yihiinna waxay ka yimaadeen gurigii oo waxay u socdaan ceelkii markii ay fuliinka yihiin ceelkii bay ka tageen oo waxay u socdaan waxa way dila ku ran yahay gurigii bay markaa u socdaan marka labada ereyna waa isku soo horjeedaan in ereyada sharaxooda kaliya aad meesha ku baranayso ma aha xataa waxa ka faa'iideysa ereyada iska soo horjeeda ilaa ardayga ereyga waxa loo weydiin karaa in ereyga sharax la yiraahdo macnihiisa raadi iyo in la yiraahdo ereyga erey la macna akeen iyo in la yiraahdo ereyga erey ka soo horjeeda keen marka intaba waxa weydii ku ran yahay ka faa'iideyso waxa kuugu xiga xarag mar reer miyigu waxay yiraahdaan goortii ceelashu waxa weeyadii la ku run yahay xoolo badan isugu yimaad bale maanta waa daahayni dhaanki waa la daahaya ceelasha waxay ahaayeen xarag mar aha marka meel xoolo ka cabaan haddii ama waxay noqon karaan biyo yarood bay noqon karaan oo biyaha aad ugu yar marka oo waxa weeye reerba wuxuu sii sugay reer kale xoolihiisu sii sugay marka xarag marka waxa leeyahay xoolo markii ceelasha ay ku bataan oo waxa weeyadii la ku run yahay kanshadii ama fursadii xoolaha waxa weeye lagu waraabin la marka la waayo madiba kuugu xigay madiga waxa la yiraahdaa neefka caanaha badan waxa kale oo la yiraahdaa wiil baa laga yaabaa intuu reer dhistay inuu waxa weeye uu allaystay ama uu dhintay hadba ka u taqaan ama uu xijaabtay ama uu geeriyooday hadba kii u taqaan waxa laga yaabaa wiil inay islaantaas waxa weeye dila ku reen dhasho wiilkaas marka aabiis isaga waa dhintay waxa la yiraahdaa madi isagana baa la yiraahdaa oo inta badan dhaqanka inagu aan leenahay wiilkaas waa loo dhisaa reer baa loo dhisaa si madaxa waxa weeye reerkaas uu u sii raago oo waxa weeye wax uga jira waa loo dhisaa wiilkaas marka madina waxa la yiraahdaa neefka caanaha badan waa la yiraahdaa wiilkaas waxa weeye dila ku run yahay hooyadiis ay kaligi dhashay oo aabiis dhinteena waa la yiraahdaa waxa kuugu xiga baaqimo waxa la yiraahdaa neefka caanaha yar marka afku waa hodan oo waa lagu kala duwan yahay dadka qaar baa baaqimo neefka caanaha yar waxa u yaqaanaan badho kuwa waxa u yaqaanaan biqjaar kuwa finaaq u yaqaan kuwana waxa u yaqaanaan baaqimo marka adigu ka doonto u aqoonsan laakiin waxa weeye waa af hodan ah oo waxa weeye dila ku run inagu aynu leenahay heeco waxa la yiraahdaa meesha hooyadeed baxday oo waxa weeye riyaha caanaha looga liso ereyga bixid marka reer miyigu waxay u adeegsadaan neefka haddii intay uu xanuunsado oo kale ama bahal dhaawaco oo kale ay bareystaan waxa la yiraahdaa waxa la yiraahdaa neefkaas ay bareeyaan waxa neefku waa baxay haddii laakiin uu kale waa la yiraahdaa waa baxtay waxa ku soo haray marka seenyo waxa la yiraahdaa rida aan geesaha lahayn waxay kale u adeegsadaan dhaqanka Soomaalida markaynu macnaha kale loo yaqaan waxa weeye geelana waxa la yiraahdaa seenya la yiraahdaa way galaalo waxa la yiraahdaa laxda ama wanka ama naysha madaxa bartankiisa cad baa la yiraahdaa wankaas waa galaalan yahay ama sabeentaas waa galaalan tahay ama nayshaasi waa galaalan tahay ogol waxay yiraahdaan in rida hooyada iyadoo aan ciidana u qaban ay maasho waa ri waxa weeye dila ku run yahay ogol ah bay yiraahdaan ridaas hebed waxa la yiraahdaa rida waxarteeda iyo waxaraha kale hadday timaado guriga ay isugu mid yihiin oo waxartii doontaa ay nuugto marka oo xaru aysan u kala socnayn waxa inoo ku xiga marka qalabka xooluhu ay ku cabaan waxa ugu horeeya qabaalkii marka waxa dhirta laga qoraa xoolaha lagu waraabiyo waxa kuugu xiga dalow ama wadaan waa shayga ceelka biyaha lagaga soo saaro marka isagana waa kaas waxa ku xiga ka maqan marka xarigii lagu xiri lahaa wadaanta si waxa weeye qabaalka biyaha waxa weeye loogu shubo ceelkana biyaha looga soo saaro xarigana waxa la yiraahdaa dawlis isagana waka isagoo xiran waxa weeye dila ku run la laaban marka waxa inoo ku xiga layligaas in aad markaa ka jawaabto su'aasha koowaad waxay ku leedahay xoolaha maxaa loo yaqaan maxaa xoolaha loogu sahamiya sahanka maxaa xoolaha loogu diraa su'aasha labaad waxay ku leedahay maxaa loo yaqaan neefka qodaxdu markay muddo su'aasha saddexaad maxay tahay dulucda maahmaahdani ari been waadida beense ma dhutiyo afar maxaa loo yaqaan xoolaha maqan qofka raadiya xoolaha maqan qofka raadiya maxaa loo yaqaan lambarka shanaad maxaa loo yaqaan xoolaha xeradii laga soo guuray u baxsada halkaas buu casharkeenu inuu ku egyahay casharkeena ku sii xigaana erayadaas baynu ku sii socon doonaa haddii Ilaahay idmo
halkaasaan ku joojinaya